awoodda isxukunku waxay ka bilaabataa kuna dhammaataa shacabka asaga oo adeegsanaya awoodda ah in mar kasta oo loo baahdo uu hay-adaha iyo wakiilada shacabka ku oogi karo la xisaabtan waa shacabku annaga matala ee na soo doorteen inayna la xisaabtami karaan ayuu dastuurku sheegayaa inayna ayagu toos ay sovereignty-gooda u leeyihiin anigu malihi qofka aan bil Soomaaliya fadhiisanaa male kan maxkamad fadhiyaa male shacabka iska leh ilaahay baa siiyay horta kadibna sharciga iyo dastuurka siiyay wadanimadooda siisay qodobka ku xiga wuxuu sheegayaa nidaamka matalaadda shacabku waa inuu ahaadaa mid furan oo qof kasta fursad u siinaya inuu ka qayb qaato habraacyadiisa iyo xeerarkiisuna si fudud loo fahmi karo faqradda ku sii xigta waxay sheegaysaa nidaamka matalaaddu waa inuu ahaadaa mid si ku filan oo macquul ah uga hortagi kara qalalaase ka dhasha tartanka siyaasadda iyo natiijooyinka doorashooyinka waa inaan dadka la dhibaatayn oo isqabqabsiga iyaga aynaan dadka ku dhibaatayn weyn waa inaan siyaabaha uu sharcigu noo ogol yahay aanu ugu dhaqannaa laakiin inaanu biro isugu dhiibno isku layno ma aha haddaba waxaan rabnaa maalimahan aad fadhidaan inaad isweydiisaan dalka Soomaaliya ma lagu xukumaa rabitaanka iyo matalaadda shacabka Soomaaliyeed danahooda qaab ka matalaya yacni miyaan ku xukunnaa annaga xildhibaanada ah ee labada aqal waxa weeye matalaadda aanu shacabka matalnaa ma isqiimayn karnaa annagu waxaa la leeyahay dastuur baa la samaynayaa waxaa la leeyahay arrimihii siyaasadda go'aan laga gaarayaa meel bay dhabo la yidhahdaa 28 bisha lagu ballansan yahay dhowr nin baa ku ballansan dhowr nin baa ku ballansan dastuurka la samaynayaa waxa weeye ka talintiisu hal haweeno kuma jiro meel la ugama jiro waa dhinacna ma uga jiro baydhabo marka 28 bisha la isugu tago oo ay dhowr madaxweyne oo dowlad goboleed ka socdaan iyo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo gudoomiye baarlamaanka ay isugu tagaan waa dhowr qof oo ka talinaya masiirkii jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ilaa kuwa oo waa goosanay Hargeysa jooga xataa tooda laga talinaya ogaada waxaa la wareystay 10,000 oo qof oo Soomaali ah oo gudaha jooga oo dibadda jooga qaar si toos ah loo wareystay qaar si dadban loo wareystay qaar through the media lagu soo wareystay qaar text message lagu soo wareystay 10,000 oo qof oo araadooda la soo aruuriyay ra'yigoodii iyo wixii laga soo aruuriyay ma hayno hay-ad baa qaadatay ma garad oo haysata annaga baarlamaan ama naloo ogola xukuumad looma ogola wax allaale iyo waxaa weeye kharashka ku baxay milyoonaad dollar oo ay EU ka mid tahay ayaa ku baxday kharashkaas cid loo sameeyana ma naqaan kharashkaasna hadda annaga nala siiyo nalagu bixiyay waxa weeye yacni wax badan oo caawimaad ah oo farsamo ah ayaan beesha caalamka uga baahannahay taas waa qiraynaa laakiinse caqabado tiro badan oo dimuqraadiyadda iyo la tashiga shacabka iyo waxa weeye yacni xorriyadda Soomaaliyeed caqabad ku ah ayaa beesha caalamka la socda waa dawo iyo sun wada jira weey kamana maarantid dhaqaalahoodii iyo inay garab ku siiyaan iyo inay farsamo ku siiyaan laakiinse si fudud ayaa waxa weeye ka tashigii masiirkaaga meesha looga saaraya tusaale yar baan rabaa inaan idin siiyo dowlad goboleedyaal la dhisayo waxa weeye waxaan tusaale ka soo qaadanayaa meel walba kale waa ka dhacday South West waxaa la yiri oo dadkii reer South West iyo maaragtay dadkii federaalka ka matalayay iyo kulli waxaa la yiri waxaan rabnaa inaan baarlamaan dhisano inaan dastuur samaysano oo erga aan saxiso kadibna inaan baarlamaan dhisano kadibna baarlamaankaasi inuu madaxweyne doorto madaxweynahaasna uu xukuumad soo dhiso oo baarlamaanku ansixiyo
ayaa dadkii reer south west go'aansadeen qoladii beesha caalamku waxay tiri ma idin sugi karno christmaskii baa soo dhow ma garat ya ma idin sugi karnaa leeyahay annagu safar baan aadaynaa marka arrinkii waxaa la sameeyey 2 usbuuc baa dad inta meel lagu soo aruuriyaa la yidhi macal madaxweynihii doorta because annagu waa baxaynaa si aan xafladdii sacabkii aan uga qayb galno madaxweynaha xafladdiisa aan uga qayb galno ilaa hadda dastuurkii south west si uu yahay waa la garan la'yahay mandate-ka hadda hadduu dhammaado dastuurkii kuma qorna cid allaale cid dooranaysa lama yaqaan ilaa waagii baa qarjajacdaas dhowr qof oo christmas aadaya awgood ya ayaa loo marin habaabiyey ummad dhan waxa weeye loo marin habaabiyey oo dhibteedu ay maantay taagan tahay waxa weeye waxaana laga rabaa inaanu sidaan uga faa'iidaysan karna saaxiibadeen na ay noo caddaato waxyaabaha dhibaatada ah oo mushkiladda ah oo dowladnimadeennii iyo dadnimadeennii halista ku ah annagu timetable-koodana kuma shaqayn karno arrimahooda oo waxa weeye waa inuu ajanduhu uu noqdaa mid soomaaliyeed waa inuu noqdaa kan oo nalagu caawinayo laakiinse dastuur oo boston lagu soo sameeyey annagu ma karayno intaan ka badan ummadda indhaha ciid loogama shubi karo shacabka soomaaliyeed waxa weeye waa inaanu dadkii matalayay baan nahay rabitaankooda waa inaan annagu soo dhuuxnaa markii ugu horreysay intii uu yacni baarlamaankeenu jiray anigu intii baarlamaan soo jirtay la carta waa taagnaay oo xataa xayn yaroo dad ah wax laga weydiiyey miisaaniyaddooda waad ogeydeenoo tii hadday ahayd tii hadda ugu dambaysay ayay ahayd oo la yidhi miisaaniyaddiinu waa intaasoo waa 200 intaasoo kun saasaana annagu nala tahay idinku maxay idinla tahay xataa ayaan waxba laga soo qaadin ra'yigooda laakiin in la weydiiyo waxa weeye systemka dimuqraadiyadduna sidaa ma aha shacabka soomaaliyeedna sidaas ma istaahilaan haddaan ka aamusno annagu oo aanu waxa weeye un kursiga iyagaa un aan aayar ilaashanno waxa weeye ummadda soomaaliyeed meesha ay taagan tahay inay kasii hoos marta mooye kor ma uga soo kacayso waxaan idinka baahannahay in aad arrimahaas ka fikirtaan maskaxdu kulligeen bay nagu wada jirtaa wixii aanna qaban oo shacabka soomaaliyeed aan qaban waa inaanu maya dhihi karnaa si aan noloba xumaan waa inaanu dhahnaa maya walaalo maya waa inaan dhahnaa oo xataa si khariban yaanaan u dhihin sidan aan rabnaa sidan gacan hana lagu siiya aan dhahno waxa weeye in yaroo activism ah aan muujinno shaqadii baan ku noqonaynaa yacni baarlamaankaan ku noqonaynaa dastuurkeenna iyo xeeroosaadkeenna wuxuu nafarayaa xildhibaanada iyo civil society-gu waa inay saas u wada shaqeeyaan sababta oo ah labaduba qaab gaaray shacabka u matalaan ma wada shaqayno annaga iyo civil society ma wada shaqayno iyaguna meel bay naga xantaan ma aqaan kuraastayda midha u baahan yihiin ma garat annaguna waxaan dhahnaa NGO-yo iyo civil society baas baa carradii wareeriyey laakiinse waxaa la rabaa waa isku baahannahay shacabkaas in loo turo oo ra'yigooda iyo rabitaankooda lagu xukumo oo wax la weydiiyo aan iska kaashanno inahaas sidii loo samayn lahaa ka fikira waxa weeye iskaashiguna halkan ha ka bilowdo dad badan oo waxa weeye ajandayaasha la rabo inaad wax ka qabataan garab idinkugu ah ayaa jira oo Soomaali ah oo ajnabi ah idinkoo taa kaashanaya waxaan idinku dhiirigelinaynaa intan ka badan yaana shacabka Soomaaliyeed sidan lagu